Asalaamu calaykum daawadayaal, waa Boolimo channel oo uga barateen inuu halkan idinka soo gudbiyo hadba dhacdooyinka ama wararka xiisaha leh ee markaa dunida ka taagan. Haddaba daawadayaal, waxaan warkeena ku bilaabeynaa maantay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo shir jaraa'id qabta ayaa waxa uu sheegay inuu dalka horey 2 asbuuc oo bandow ugu soo jira, hadeerna uu yiri waxa uu bandowgii kordhinay oo aan ka dhignay 3 toddobaad isaga oo ku ekaan doona bisha soo socota ee May 5-teeda. Yoweri Museveni shirkiisa jaraa'id ayaa waxa uu kaga hadlay guusha weyn ee ka gaadhay Uganda in uu ku faahin cudurka dunida sida xun ugu fiday ee COVID-19. waxa uu yiri waanu ka adkaanay tan kaliya aan ku jibinayna waxa weeyaan awaamiirta oo ay dadku qaateen iyo dalka isu socodkiisa aanu xakameynay. waanu ku mahadsan yihiin ayuu yiri shacabka Uganda inay guryahooda ku ekaadaan. mar uu fariin adag u dirayay laamaha socdaalka iyo hay'adaha amniga ayaa waxa uu yiri laamaha socdaalka waxaan farayaa inay xuduudaha dalka adkeeyaan shaqadii hore ee qabteen ay laba jabaaraan ayuu yiri. waxaanu yiri dal meesha ay wax ka soo galaan waa xuduudaha. waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono ciddii ka soo bixi wayda shaqadeeda ee ka tirsan hay'adaha socdaalka iyo laamaha amniga. waxa uu kaloo mar ay dadku cabasho ka muujiyeen isu socodka gaadiidka waxa uu sheegay in taasi aanay ahayn wax baahi ah oo taagan. waxa ka weyn ayuu yiri khatarta inay soo food saari karta ayuu yiri haddaanu dadka u fasaxnay inay gaadiidka isticmaalaan, isaga oo yiri waxaa la adeegsan karaa ugu fudud oo ay dadku isticmaali karaan masaafooyinka fogna ay ku tegi karaan waa baaskiilka, kaasoo uu yiri waxa uu qaado waa hal qof oona adeegsan karo meeshuu rabana si fudud ku geyn karaa ayuu yiri. waxa uu kale oo intaa ku daray in dadka ilaa haddeer tirada saxda ee la sheegay ee dalkiisa laga helay oo COVID-19 ay tahay 54 qof. waxaanu yiri taa waanu ka guuleysanay inuu sii fido cudurka. waxaanu kaloo idiin haynaa dalka Hindiya ayaa waxa ay u direen dhakhaatiir iyo ciidamo iyo khubaro dhinaca caafimaadka oo u diray dalka Kuwait, iyaga oo yiri waxaanu Kuwait ka caawinaynaa sida cudurka halista ah ee dilaaga ay ku sii fiday dunida aanu ugu fidin dalkaasi. waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal dowladda dalka China ayaa waxa ay diyaarisay malaayiin tan oo isugu jira dawooyin iyo qalab iyaga oo horeyna ugu diray intaa in ka badan amaba u dhigmata dalka Afrika. Chinese-ka ayaa waxa uu mar walba muujiyaa garab istaaga ama taageerida uu hayo qaaradda Afrika isaga oo xiriir ganacsi iyo mid dhaqaale intaba la leh. wakiilka China oo u qaabilsan Afrika iyo wakiilka midowga Afrika ayaa waxa ay kulan ay ku wada yeesheen magaalada Beijing kaga muujiyeen sida ay China u garab taagan yahay mar walba qaaradda Afrika uuna diyaar ugu yahay inuu ka qayb qaato ama uu la qayb qaabsado halis walba oo ku soo wajahda qaaradda Afrika. waxaanu kaloo daawadayaal idiin haynaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa iyaduna soo gaartay deeq ka timi dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. deeqdaasoo isugu jirta dawooyin iyo qalab iyo alaabo kale oo lagaga hortagayo faafidda COVID-19 iyadoo la soo sheegayo dalka Soomaaliya inuu cudurka caasimadiisa Muqdisho uu ku sii fidayo oo laga helo dad aad u fara badan oo ayna sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeyso tirada halkaasi ee laga soo sheegayo ama uu soo ridanayo, iyadoo walow dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyay ay tahay 2 qof oo Soomaaliyeed. dawadan ayaa waxa ay dalka Imaaraadka Carabta ka timi xilli ay aad ugu sii baahayo sida kala wararka ee hay'adda caafimaadka Soomaaliya ay soo sheegay.